رمضان يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان kulan wanaagsan ku soo dhawaada Salma Vlog and Entertainment. waa muuqaal kale oo cusub oo aan ugu talagalnay dhageystayaasha qaybta qosol iyo qaraaxo. qodobadaan idin haynana waxaa kamid ah oday qiyaano cajiib ah ku sameeyay gabar iyo hooyadeed, kadibna guursaday gabadha hooyadeed, wiilkiisana ku daray gabadhaas guurkeeda lalahaa dhaqaale badan ayaa laga doonaya. sida ay wax u dhaceen ayaan idin haynaa. waxaad kaloo daawan doontaan nin arrin cajiib ah kala kulmay gabar wadada uu ku arkay, wixii dhex maray iyo arrimaha jacaylka ee uu u qaaday sida looga warceliyay. qaybta dambana waxaan idin haynaa bal tusaaleyso adiguba wiil aad u da'yar oo xilliga waxbarashada ku jira isagoo sigaar cabaya. haddii aad arki lahayd maxaad ku oran lahayd? falcelinta uu sameeyay, ooyinta uu iska celin waayay iyo ninkii hadalka ku yiri waxa uu ahaa ayaan idin haynaa. anigu xasan xayi cabdullaahi ayaa idinla socodsiinaya. waa mar kale iyo xubinta qosol iyo qaraaxo. Salma Vlog and Entertainment ayaana naga daawanaysaan. aan ka hormariyo intaasoo dhan mid ka mid ah qasiidooyinka nabi amaanka. rasuulka imiraadsayo inuu nabiga muuqdaan moodaya alla ya jaliil alla ya jabbar inuu nabiga muuqdaan moodaya madaragnay dhaydee rasuul dhane inuu nabiga muuqdaan moodaya xubada rasuulka imiraadsayo inuu nabiga muuqdaan moodaya alla ya jaliil alla ya jabbar inuu nabiga muuqdaan moodaya alla daragnay dhaydee rasuul dhane inuu nabiga muuqdaan moodaya xubada rasuulka imiraadsayo inuu nabiga muuqdaan moodaya alla badowsana kuwa nabiga bal inuu nabiga muuqdaan moodaya xubada rasuulka imiraadsayo inuu nabiga muuqdaan moodaya alla ya jaliil alla ya jabbar inuu nabiga muuqdaan moodaya maka iyo madiinu soo maro inuu nabiga muuqdaan moodaya madad iyo mirqan boleheyo inuu nabiga muuqdaan moodaya xubada rasuulka imiraadsayo inuu nabiga muuqdaan moodaya inuu nabiga alla ya jabbar inuu nabiga muuqdaan moodaya xubada rasuulka imiraadsayo inuu nabiga muuqdaan moodaya inuu nabiga muuqdaan moodaya inuu nabiga muuqdaan moodaya inuu nabiga muuqdaan. waa hagaag xubinta qosol iyo qaraaxo qaybta koobaad aan u gudagalno. Salma Vlog and Entertainment ayaana naga daawanaysaan. hadda kahor waxaa jirtay haweeney single mother ah ama haweeney garoob ahayd ayaa waxaa u joogay gabar yar oo aan weli la guursan. aad ayayna u qurux badnayd, waxaana ay ahayd mid raggu ay haasaawaheeda waqti badan geliyaan gabadhaas si ay u heli lahaayeen oo ay u guursan lahaayeen. hase ahaatee waxay shardi adag kala kulmeen raggaasi hooyada gabadha dhashay, iyadoo ku xirtay meherka gabadheeda inuu yahay 50 milyan lacag gaaris. waase ay adkeyd runtii, lacagtu aad ayay u badneed, cid ku dhiirataana waa la waayay maadaama gabadha hooyadeed ay go-aankeeda ahayd miday ku adkaysatay oo aan qofkii lacagtaas keenin sheegtay inuusan gabadheeda guursan doonin. wiil ayaa aad u jeclaaday gabadhii, intii uu dadaali karo ayuuna sameeyey wax walba oo karaankiisa ah, wuxuuna keenay lacag 30 milyan ah. wuxuu soo ururinta lacagtaas geliyay waqti badan. aabihiis ayuu u sheegay inuu gabadhaas doonayo uuna rabo inuu guursado. waxaa kale uu u sheegay wiilkii aabihii shuruudaha hooyadeed gabadh ay dul dhigtay inanteeda inay tahay 50 milyan lacag gaaraysa. hadda 20 milyan ayaa ka dhiman maadaama wiilkii 30 uu haystay. nin aanan wadanin gabadha in uu 50 milyan heli doonin hore ayaa loo sheegay. wuxuuna wiilkii aabihiis ku yiri, aabe macaan, maamadaas aniga ayaa kaaga aqoon badan, 50 milyan ka yarna lagama yaabo in gabadheeda ay ku bixiso. hase ahaatee odaygii wiilka dhalay ayaa waxa uu u tegay hooyada gabadha loo geli waayay dhashay. waxaase hore u raacay odayga wiilkii gabadha loo dooni lahaa. gurigii ayay tageen, albaabka ayaa laga furay. iswaraysi kadib aabihii wuxuu u sheegay
maamadii garoobka ahayd ama single motherka inuu gabadheeda wiilkiisa u soo doonay lacagna 10 milyan ay hayaan kaliya si meherka gabadha looga dhigo ayna u guursadaan gabadhooda. maamadii ayaa isla markiiba hadalka dhex gasho waxay tiri warkaas iyo wax u dhow ima maraan. aabbihii wiilka dhalay ayaa hadalkii qaatay oo yiri ha iga dhexgelin warka, hadalka aan dhamaysto isug, 10 milyanna adiga ayaan meherkaaga kaaga dhigayaa oo aniga ayaa ku raba. maamadii inta ay qosol dhoola cadaysay waxa ay tiri rabbi ha isku keenna barakeeyo, waana ogolahay wax kasta. markii ay dariska weydiiyeen oo arrintii gabagabowday oo maxaa dhacay oo uga tanaasushay go'aankaadii ahaa 50 milyan in lagu mehersado gabadhaada, waxay tiri badeecaduba markii jumle iyo tafaariiq lagu kala gadanayo isku qiimo ma aha. sidaas daraaddeed wiilkii aabbihii buu weydiiyey lacag 10 milyan oo soo hartay, waayo 10na gabadha loogu meheriyey, 10na maamadii garoobka ahayd, 20 maadaama meesha ay ku baxday waxaa soo hartay waa 10, wiilka 30 milyan maadaama uu soo shaqeeyey. wuxuuna yiri aabe macaan 10kii soo hartana hooyada ayaan masir tir uga dhigay. waajib waayahay daawadayaal, qeybaha dhexe ayaa daawanaysaan Salma Vlog and Entertainment, xubinta qosol iyo qaraaxo. bal markan ninbaa wuxuu hadda ka hor ka daba hadlay gabar uu wadada ku arkay. wuxuu yiri waxaan arkay quruxdaada, soo jiidashadaada leh, waxayna igu sababtay inaan ku jeclaado. way dhoola cadaysay gabadhii, waxayna ku tiri eeg xagga dambe waxaa joogto saaxiibtay oo aniga aad iiga qurux badan. hadduu jeestay cidna ma daba taagna. wuxuu yiri meeday saaxiibta? intay qosashay ayay tiri lacalla haddii aad i jeclaan lahayd ma waxaad raadin lahayd qof kale ama mid iga qurux badan. wuxuu ku yiri may waan eegayay inay cidi idaba joogto. waxay ugu jawaabtay eegmadaada macnaheedu waxay tahay inay indhahaagu arkin gabadhii ay jeclaan lahaayeen ee mar kale ku cisho, laga yaabay inaad hesho mid iga qurxoone. tulucda sheekada waxay ka dhigan tahay qofka kugu jeclaaday indhihiisa wuu ku iloobi karaa, laakiin qofka qalbigiisa kaa soo jeclaada marnaba kuma ilaawi karo. damaca qaarkiisna ragga rabbi baa u abuuray. وصوته يسبق خيط النور ينده علينا ساعة السحور يدعي لنا بالغفران. qaybta ugu dambaysa ee qosol iyo qaraaxo ayaan eegaynaa. wiil yar ayaa isagoo sigaar cabayay ooyin iska celin waayay kadib markii hadal uu ninku yiri. waxaana ay sheekada ahayd nin ayaa waxa uu arkay xilli subaxa wiil yar oo sigaar cabaya. markaas ayuu ku dhahay aabbaha ayaan saaxiibo nahay, waana u sheegayaa inaad waxbarashadii u gambisay, waayo subaxan ayaad wadada dhinaceeda sigaar ku dhuuqaysaa oo aad ku cabaysaa. wiilkii yaraa indhihii ayaa oohin soo dhaaftay, wuxuuna dhahay aabbe 2 sano maan arkin, haddii aad adeerow aragto u sheeg ha noo soo laabto, aniga iyo hooyo iyo walaalo waa u baahannahe. ninkii ayaa inta ka naxay ku yiri adeer waan kula kaftamayey ee aabbaha ma aqaano, laakiin waxaan islahaa wiilka ka cabsi si sigaarka uu isaga dhaafo. wiilkii wuxuu dhahay adeer xataa aniga waan kula kaftamayey, aabbahay shaqo ayuu hadda ku maqan yahay, laakiin waxaan rabay inaan iska kaa hubiyo inaad aabbahay taqaano iyo in kale. meeshii ayaa wiilkii lagu baray qaabdarada uu leeyahay sigaarka iyo weliba dhibaatada ka soo gaari karta. sidaas awgeed ayaana wiilkii lagu qanciyey inuusan mar dambe sigaar cabin. رمضان guud ahaana daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta qosol iyo qaraaxo. janalka Salma Vlog and Entertainment ayaana ka daawanayseen. anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa soo jeedinayay. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inta aan dib dambe isku arki doonno muuqaalo kuwan ka xiiso badan insha Allah.
أمان الله. ومسحراتي يلف يدور وصوته يسبق خيط النور، ومسحراتي يلف يدور وصوته يسبق خيط النور. ينده علينا ساعة السحور، يدعي لينا بالغفران. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان رمضان